ambassador Samiya waa kusoo dhaweynaya ugu horreyn ambassador kusoo dhawo Horyaal TV wafdi baa jiray in uu hogaaminayo gudoomiye ku-xigeenka golaha wakiilada oo socdaal ku tegay dalka Finland waxaa la kulansiisay madaxweynihii hore ee Finland maxay ka wada hadleen wafdiga iyo mas'uuliyiintii dowladda Finland ee la kulansiisay. bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan salaamayaa TV-ga Horyaal TV runtii haddaan ka hadlo wafdigii Somaliland ee uu hogaaminayay gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee golaha wakiilada xildhibaan Cali Xamed Jibriil iyo gudida arrimaha dibadda ee la socotay waxaa runtii aan oran karaa ama aan oranayaa si kalsooni leh oo farxad leh in Somaliland maanta magaceedu uu kor u qaadmay uu ka dhex maxaa la dhahdaa muuqday dalka Finland hadday noqoto xukuumadda dalka Finland oo ay ka tirsan tahay xisbigan ugu weyn ee maxaa la dhahdaa Social Democratic Party uu prime ministerkeedu uu hogaaminayo hadday noqoto annaga Somaliland ahaan iyo xafiiska Somaliland Liaison Office oo 2 bilood jiray iyo dhammaan de shacabkeena reer Somaliland meel kasta ay ka joogaan runtii waxay noqotay maxaa la dhahdaa booqasho taariikhiya albaabo fara badanna furtay oo maanta aan yaqiinsanay inay xarako ay keento maxaa la dhahdaa wax kasta oo albaab kasta haddii dhaqdhaqaaq la sameeyo oo furmayo in badan baa runtii aan qalbiga ku hayay in booqashadaas oo kale mas'uuliyiinteena iyo xukuumadeenu ay maxaa la dhahdaa soo booqdaan dalka Finland oo chance fara badan laga heli karo hadday noqoto lobbying qadiyada Somaliland ee ictiraaf raadinta waayo dalka Finland waxa weeyaan dal dimuqraadiyad ku dhisan waa dal nidaam xisbiyo ku dhisan xisbigan maanta Social Democratic Party ee aniga aan memberka ka ahay SDB waa xisbigii de maanta ilaa inta muddada 30 sanadood ee Somaliland maxaa la dhahdaa ictiraafka raadinaysay ama anagu aan halkan joognay waa xisbigii ugu badnaa muddada ugu badan ee hayay haddii aan ka hadlo madaxweynihii hore ee aan wafdiga la kulansiiyay Tarja Halonen waxa weeyaan madaxweynihii ugu horeeyay ee haween ah maxaa la dhahdaa ee 11aad dalka Finland maxaa la dhahdaa loo doortay waxaanay haysay 2 teeram waxa loo doortay 2000 inay noqoto madaxweynaha Finland haddana waxaa loogu daray 6 sano kale 2012 ayay ka degtay madaxweynahan imanka maanta haya Sauli Niinisto ayaa ku bedelay runtii de waxa weeyaan taariikh aad u culus waxa kaloo ay la kulmeen waxa weeyaan prime ministerkii hore 2019 ahna maxaa la dhahdaa hadda gudoomiyaha golaha baarlamaanka ee Finland mudane Antti Rinne oo in badan aan soo wada shaqeynay oo hore aan ku sheegay wareysigii in aan ka mid ahaa dadkii habeenkii loo maxaa la doortay agtaagna anigoo waliba calankayga Somaliland xiran oo maxaa la dhahdaa garab istaagay aan ka mid ahaa 500 ee irgo ee u codeysay berigu noqonayay gudoomiyaha xisbiga haddana aan ka mid ahaa campaignerkii ugu weynaa ee la campaign gareeyay markuu prime ministerka noqonayay la kulankii wafdigana runtii sumcadda ayaguna xisbi ahaan waxay ku heleen taageero fara badan oo ayaga laftigooda maanta dad fara badan ayaa ku soo xidhmay markay arkeen qaabilaadda annaga ayna qaabilayeen aniguna runtii waxaan u ahaa xidhiidhiyaha labada dhinac laanta aan ka tirsanahay ama Helsinki qaybta aan ka tirsanahay xisbiga aan ugu fadhiyana waxaan qaabilsanahay xiriirka arrimaha dibadda oo runtii aad ay ku farxeen booqashaday wafdiga Somaliland oo korka loo qaaday oo la qadariyay oo runtii waxaan anigu u arkay annaga ahaan reer Finland inaan ka seexanay oo xataa xisbiyadeenu ka seexdeen in marka hore Finland laga asaaso dadka Finlandna la isku wada xidho qadiyadana waji midaysan iyo qadiyad midaysan aan ka dhigno oo si toos ah aan mataqaana halganka aan u wada galno ka bacdina aan mataqaana dibadda iyo caalamkana aan istusno runtii albaab fiican baa ka furmay Finland albaabkana waxaan leeyahay dowladda Somaliland inaanay mar dambe ka seexan inay toos albaabkaas mataqaana u soo baaraan
inay soo galaan dalka Finland, in Finland lobbying laga sameeyo, in mataqaana siyaasadeena arrimaha dibaddana attentionka fara badan la siiyo wadamadan maxaa la dhahdaa European-ka ah oo yani mataqaana si kala duwan aan campaign-ka u galno. Campaign-ku maaha in mataqaana uu noqdo guddiyo la diro iyo safaro la galo, laakiin waxa weeyaan in qof walba meeshiisa uu degan yahay, wadanku degan yahay, jaaliyada ay degan tahay, waa in ayagoo isku duuban la shaqeeyaan xafiisyada Somaliland, ayaga oo aan mataqaana loo eegaynin hebel baa haya heblaaya haysa, laakiin laga midaysnaado magaca Somaliland. taasaa mataqaana wax walba aanu ku noqon karnaa, aqoonsina aan ku heli karnaa. taasi waa dardaaranka aniga saamiye ahaan aan maanta siinayo bulshada reer Somaliland ee ugu horeyso reer Finland inay fadhiga ka kacaan, aanay eedaha iyo mataqaana dee aanay calamo kala harsanin ee calankooda iyo xafiiskooda harsadaan, waayo kaasaan wax ku nahay. waayo maanta aniga ninka cadaanka wuxuu iigu istaagay because waxaan u istaagay qarankayga. qofku marka la arko inuu qarankiisa u taagan yahayna kalsooni baa la siinaya, wax walba waa lagula shaqeynaya. Abastore madaarka Berbera ayaa maalintii Sabtidii ahayd xadhiga laga jaray, bal horumarka sideed u aragtaa ay Somaliland ku talo dekada maxaa la dhahdaa airportka Berbera oo maxaa la dhahdaa madaxweynuhu xadhiga ka jaray, runtii farxad weyn bay ii tahay. oo markaan daawaday airportka, markaan daawaday dhismihiisa, markaan daawaday maxaa la dhahdaa goobta diyaaraduhu ay ka kacayaan, wallahi waxaan dareemay mataarkii Kuwait ama mataarkii dowladaha Carabta Khaliijka aan arki jiray, aan kusoo ag koray, aan kusoo ag dhashay, oo runtii horumar weyn ay ii tahay maanta. oon ku faraxsanahay, oon doonayo inaan insha Allah bisha dambe aan Somaliland socdaal ku imaado, oo ilaahay aan ka baryayo inaan dekada Berbera ama maxaa la dhahdaa airportka Berbera aan ka soo dego. taasina waxay ii tahay taariikh cusub iyo nolol fiican aan ugu haneynayo dalka Somaliland, dalkayga iyo shacabkayga.